wiilkan iyo gabadhan ayaa social media haysta 4 saac soo dhaafay guurkooda wuxuu dhacay bilo ka hor wax aan sanad gaaraynin qodobka inta aan lagu tuurin adiga istuuraal dhaha alaabtan waa naqshad 2026 hor dhac u tahay adoo qushuucsan oo fikiraya hadii lagu arko jaa muuqaalkaas waa la qaadanaa wuxuu aamin leeyahay inuu iskaabulada maanta waa xaasalayaasha bari السلام الله عليكم أصحابتي شنو أكسن ما الله بين دور عصر مرفش طوبو أنت ونكسن ما أنت هو برنامج كأروسيدي وصامين تبوق يسحمد ضبنا فوستوي بدن بسكر ناي لا بكون إلا بعد هردعي سي أروسيد قاب كي نقول دونا أنا واحد بدي كده بيجين دونا هدي أنا قرش بتفضل جلك وجلك كشلو قام فهم كومنتو ما توع دمان حنبليه وشو حنبليه في ملي أصلك تنا برنامج كنا صار وكيل ما منا أنت نبودو جرين نكان غيرتها أحمد الضوء لها انت بتقانا دي كل كارك سوشيال ميديا مقعيسو قابن وانين سنة كان هدير بالعوانية 2025 بشي كوباد مياه ميلاها صلوات نين جرمالكا نين أفغانستان وإلما من دي كلين نين قبين جري وشكل جري مقعيسو معدو مدى الصومالية جرمال كون وكرؤو قاضي إلاي مدحوينها مياه اللوغي أو بلده لسيي معناها نين مدى الصومالية جرمالكا قيمة ويالي بقول يكونتم كون مياه كل واضح تاوعو دجنكاس إن سيتيزن لسيو مدينها إضالة شالله سيو gobolka Bayer buu deganaa nin kale oo Jarmal meesha ku jiray oo dhintay asagana oo ma taqaana ninkii xogaa kor loo qaaday ninka Afrikaanka hoos adiga hoos ka sii farbadana ku dhacday gobolkaas nasiib haduu gobolada kale u yeelan lahaa ninkaas ma citizen mu ala laas gobolkaas Bayer aad cunsuri ah baa la go'ay kulli hadeer dhalinyaraha waxay ga soo wicida kaasi Paris waxay ninkii meeshaan uu ma taqaana homeless ku yahay waana wax laga xumaado kulli nin Talyaani oo ku noqday ku haysteen isaga hadeer wuxuu ogolyahay Talyaanigiis inuu ku noqdo oo noloshiisa uu ka soo bilaabo oo diyaar u yahay dhalinyarada TikTok ee giftarada ah ama dadka umada Soomaaliyeed in wax la baxaan jecel waxaan dhihi lahaa war qof la caawiyo qofkaas ugu haboon maanta waqti xaadirkaas billahi calaykum fariintan isgaarsiya ninkaas dhalinyarta Axmed Odawa hal caawiyo Axmed Odawa adiguna haduu muuqaalkan ku soo gaaro waa laga yaabaa inaad telefoon haysto waxaan rajeynayaa in noloshaadu wali aysan saas u kala daadan oo telefoon ay haystid nin umada Soomaaliyeed la soo hadal TikTok soo gal nin dhalinyaro ah umada Soomaaliyeed magacooda kor u qaaday na sharfay baa tahay ma taqaana Yurub oo dhan xataa warkiisa uu gaaray Talyaaniga inaan ku noqoto oo baan tahay inta nolosha aad kaga dhici lahayd meel kale ama abaalka noqon lahayd soo hadal jicsinkaaga iyo gacan qabsigaaga hal lagu siiyo Talyaaniga ku noqon noloshaada dib u aasasatid oo noloshaada dib u taagatid marka fariintaas isgaarsiya ninkaas dhalinyartaan hadaa aragtaan fariintan gaarsiya waayahay intaasan kaga soo gudbo barnaamijka aroosyada horta aroosyadii fuustooyin badan baa soo kordhay koow alaab waxa tibid liiraahdo intii dhabarka saas lagaaga istaago lagu tuuraayo alaabtan waxa la dhahaa inta aan lagu tuurin adiga istuur 2026 waa halku dhiga aroos walba oo ku arki doontaan hadda bilow tahay fiiri inta aan lagu tuurin istuur baa la dhahaa alaabtaas dhabarka laga taagaya macnaha والو تخينا فهم انت aan lagu tuurin istuur iska bulada maanta waxa xaslayaasha bari ana og inaad mar walba calafkiina isugu doontaan laakiin dadaal sameey waxa ii sawiran adigoo nin weyn macnaha kan gabar waayb nin weyn oo dhabarka tiilga istaagay la taqad xariif kan miina uu ka badbaado iyo qarax xariifkii wax ku meherinayaa meesha 50 gram oo dahab lagu soo heshiiyay 50 gram 3 milyan lacag ku dhaw kaga dhigo aan ku gooriyay aan ku gilikaxiyay jaahi anag sigaay nuur oo markii yahay 50 gram iga qabiyo yiri iga joojiir walaalow ku celi ninka xaalida كنت بكون برامج هذا قلت لك لكن استعشيت عارتاس كونفيرم تدي kugu dhacday ogtahay inoo confirm taas kugu dhacday wallahi 3 milyan laga soo ku celiyo muslim odayaasha wax meerinayo walaalayaal heshiisa jiro oo kistina soo walaalayaal anaga yaabano qiiqeena fooda naga daay maxay alaabtan macna hal siiro wagaal kaga dareysiine 30 gram oo dahab lagu soo heshiiyay hal siiro gadaal kaga dar 30 kun oo muslim TikTok hadii adigoo waqtiga guurkiina lagu jiro gabadha xoogaha yar ku mashquusho muuqaalkaas waa la qaadanaano asaa waxa lagu soo qoraa wuxuu aamin ilaahay in gabadha ugu qorxooneed uu helay yarkan dhalinyarta ah waa la soo dhaweynayay gabadh walaashiisa
dumaashahan gabadha kale u soo dhow فاكو جعل بوياكو جعل فاركو جعل عاوة هبين وين ومكاسي حول حسن سكري عمر يوسف فرسكودي labada gabdho intii wada hadlayeen bulsho gabadhu fiirinay saas ugu maqanaa macnaha jawaab la qaato muuqaalkii aamin la yahay boqoradii ugu qurxooneed inuu helay hatta kaligiis maaha yar kale hatta waa arkay war adiga macnaha 2026 arooskaaga markaa soo gashay ina qiiro dhan iska ilaali saas u taagno macnaha warkaaga saas u cadaado wax yaraan qiiroon hadaa dhahayd muuqaalkaas waa la wataa wasiirkan oo soo dhiga oday waa qiireysan yahay qoftu aamin la yahay wallahi meeqasan ay ku adkaysay 37 bolo oo kala duwan ku dhacay arrinkan bolo si loo saaray macnaha caawa wiilkan iyo gabadhaana social media arintooda aad looga hadlayaa sabab kalena ma aha shalay markii isguursanayeen dad isku faraxsan oo isugu faraxsan yahay buu ahaa laakiinse hadal shalay ka tagay awgeed bamaanta loo daba taagay horta aniga lamaani ugu horeeyo intaan ka hadlo ayagoo kala tagay social media la wareejinaa arka way aan ka naxwaay wallahi ma jecleen lamaanayaashada kale waa barakaysnaayeen halkaas wax way xaba igu soo noqday wiilkan iyo gabadhan maalinkii isguursanayeen gabadhu waxay ku celcelinaysay haddaad guursanayso in adeerka guurso macnaha haddad ilma adeernimo isku guursaday ilma adeernimadooda ku faanaya buu ahaa si calafku ilma adeer iyo ilma adeer la'aan ma qoro calafku meel buu ka bilowdaa meel buu ku dhamaadaa hadduu calafkaagu ilaahay kuu dheereeyana midaan ilma adeer maahay geelin isku meel daaqin oo soomaalinimo ay isugu timaadaan baa ilaahay nolosha isku duqoobaysiin haddii mataqaanaa nolosha ilaahay calaf kuu soo gaabinayana kii dadkuugu xigaa ilaahay calafkiisa kaa soo gaabinaya marka wax ilaahay xaggiisa horta yaalla oo calaf ah oo ilaahay xaggiisa ka qoran ina adeerkii baan ahay ina adeerteed baan ahay iyo horta meesha ma soo gali kartaba waxaan meel ka bilowdaa meel ku dhamaadaa samin sabca waaye umur alxaasil erigii shala gabadhii ku celinaysay marka ina adeerkii baan guursaday ahaa ba maanta meel walba looga challenge gareynaya guurkiina hadaydan private ka dhigan karin walba guurkiina inta ku dhex jirtaan hadal birin la idinku challenge gareey afkiina ka soo bixin waxay sababtay gabadhaas maxay tahay waa kelmadii ay shalay ay dhahaysay xilli qof jacayl hayo waqtigeeda guur ku jirta in adeerkeeda is guursaday kelmadaas si fudud bay u tiri mii is dhahaysay balaayo Soomaali ah oo aboora joogto ereyga kula daba kacayso maanta luuqa ka baxay kelmad يا ميدين ما أخريا حلقة عمل قابك لو هلا وروحان بودي لانجويج نيو نين أخريا فيري wiilka iyo gabadhan arooska intaysan soo galin adiga 3 bari aroos markay ka dhiman tahay khilaaf dhacay fiiri aqrinaya waxaan yarka xogaa telefoonkiisu meesha kaga tagay qofka WhatsApp adiga nidaam masayr yara jiro hayo u jeedaa waa ka aqbalano anoo ku xanaaqsana arooska ogolaaday may xaybtii jiilay sheedaanka iska naar markii saas u fiirinayso xanaaqsana maarta maruu ku xaday waayno hadii aan xataa ilaahay afro ii baniyaa way fiirinaysaa marka taas ma keenta arooski ugu qurxoona horta bishaan aroosyadu zaid u shidnaayeen wallahi aroosyo laga soo wada shaqeeyay farta ka xiran nidaamkooda saxan u ahaa laakiin si arooskan qaabka muuqaalada dhan loo soo koobay dhan walba soo uga dhisnaa arooskan u doortay macnaha waa laga yaabaa in cadaalad darro sameeyay aroosyada qaar aan arkin oo ka shidan inay jireen laakiin aniga intii aan baarayay ama aan mataqaanaa raadinayay aroosadii 3 bishaan dhacay arooskan aroos ka quality fiican ma arkin waa miisaanka culus waay wiilkan iyo gabadhan lamaanaha bishaan u dooranayna sababtoo ah arooskooda si waqti u galiyeen nidaamka protocolka soo hagaajisnaa decorationka mataqaanaa jadwalka waqti adiga nidaamka arooskan zaid u shanaa lamaanaha bisha marka aan siino haday jiraan aroos kale aan arkin oo lamaana kale aan cadaalad darro ku sameeyay waa ka raali gelinaya waayahay umur xaasil kuma dheeraanaya hambali u soo qoro familiyadaas ilaahay inuu isku barakeeyo sanadkan sanadkiisa bashbash iyo barwaaqo ilaahay ku gaarsiiyo ducada ma taqaanaa intiina qof oo meesha ugu timid ducadii ilaahay dadka soo wada aqbalay insha Allah guurkoodana waa cimriyeysan doonaa barnaamijkan iyo problem waaga diyaar annagu inta qurux badan like subscribe